سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneed ba naxariista. ويل لكل همزة لمزة. hoog iyo halaag wuxuu u sugnaaday mid kasta oo dadka xanta u ceebeeya. الذي جمع مالا وعدده. kaasoo aruuriyay xoolaha kadibna tirtiriyay. يحسب أن ماله أخلده. wuxuu u malaynayaa inay xoolihiisu waarin. كلا لينبذن في الحطمة. saas ma aha ee waxaa lagu tuuri xutama burburiso. وما أدراك ما الحطمة. maxaa ku ogeysiiyey nabi maxamedow sallallahu alayhi wasallam naarta xutama waxay tahay? نار الله الموقدة. waa naarta ilaahay ee la horiyey. التي تطلع على الأفئدة. taasoo kuleelkeedu gaarayo wadnaha dadka. إنها عليهم مؤصدة. naartaas waa mid lagu dabooli gaalada. في عمد ممددة. waxay ku sugan yihiin kuwaasi tiirar naara oo la fidiyey dhexdeed. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الهمزة ومكية 9 آيات ayayna ka kooban tahay waana suuradda 104 ee Quraanka Kariimka ah. سورة الهمزة waxay cadaynaysaa hooga iyo halaaga u sugnaaday qof kastoo ku mashquula xanta dadka iyo ceebeyntiis iyo qof kastoo xoolihiisu ka mashquuliyaan xikmadii loo abuuray. kuwa dadka ceebeeya ee adduunyadu ay ka mashquulisay aakhiro waxaa lagu tuuri doonaa naarta burburisa ee xutama, waana lagu dabooli tiirar waaweyn ayaana lagu sii tiirin si aysan marnaba naarta uga bixin. haddaba walaa naftaada ka ilaali naarta Ilaahay. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيوير النبي عليه الصلاة والسلام. قفك مسلم كواقفك عيدتك كبد بادان قعنتي سي عرب كيسه. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.